بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. waxaan hambaliyo salaan iyo bogaadin ku aadan munaasabada 12 Abriil hawada u marinaya sareeyaasha saraakiisha saraakiil xigeenada alifleyda dableyda iyo jadiidka ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed xaasaskooda iyo caruurtooda sanad guurada 62 ee asaasida ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed oo ku beegan maanta oo ay taariikhdu tahay 12 Abriil 2022 waa maalin weyn oo ay tahay inaan dhammaanteen u wada dabaaldegno farxadana aan la qaybsano ciidamadeena sharafta leh. waxaan si gaar ah salaan ugu dirayaa halyeeyada wiilasha iyo gabdhaha leh ee furimaha hore ee ku hor fadhiya cadowga argagixisada ah habeen iyo maalinna u shubayo dhiigooda si ay u difaacaan qarannimada Soomaaliyeed. ciidamada qalabka sida guud ahaan waa hay'ado dastuuri ah oo aan dhicin waqti ka dhamaan oo haysta mandate furan inta uu jiro qaran Soomaaliyeed. arrintaas ayaa ka dhigan in ciidamadu yihiin xudinta dawladnimada iyo aasaaska qarannimadeena. sidaa daraadeed waxaa laga doonayaa dhammaan qaybaha ciidamada qalabka sida iyo taliyaashoodu inaysan yeelan sumad iyo ujeedooyin aan ahayn kuwa qaranka ee dastuuriga ah kana feejignaadaan ku milanka siyaasadaha isdiidan ee waqtiga la dhamaan doono. ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed waxaa waqti dheer hor yaalo waajib qaran oo weyn oo ah in dalka laga cirib tiro argagixisada. waxaan rajaynaynaa in mar walba maanka lagu haayo in arrintaas ay tahay waajibka ugu weyn ee na sugayo. waxaa halkan si gaar ah uga mahadcelinayaa dawladaha aan saaxiibada nahay ee sida walaaltinimada ah noogula shaqeeyo tayeynta ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed. waxaana leeyahay mahadsanidin. ugu dambeyn waxaan u rajaynayaa dhammaan xubnaha ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed in sanadkan sanadkiisa uu Alle subxaanahu wa ta'ala ku gaarsiiyo nabad guul iyo horumar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.